معكم الدكتور محمد عبد الحميد. اخوتنا في سكان جروي مدينة جروي عاصمة بوتلاند، نرحب بكم ونتمنى لكم اياما سعيدة. waxaan ahay Dr. Maxamed Cabdi Xamiid oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca habdhiska dheefshiidka sida cudurka baabasiirka. waxaan waxbarashadeeda jaamacadeed ku qaatay jaamacadda Alepo University. waxaan leeyahay khibrad 14 sano oo aan kaga soo shaqeeyay wadamada Liibiya, Turkiga, Ruushka iyo Soomaaliya oo aan hadda ka shaqeynayo. walaalaha Soomaaliyeed ee degan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland, waan idin soo dhaweynayaa. waxaan idin rajaynayaa maalmo farxadeed oo wanaagsan. waxaan ka imi magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. waxaan ka shaqeynayay cisbitaalka Soomaaliyeed ee Suuriya muddo 3 sano ah. waxaan sidoo kale ka soo shaqeeyay Turkiga muddo 3 sano ah. waxaan ka shaqeynayay Soomaaliya 5 sano ka horna waxaan ka shaqeynayay dalka Liibiya. kulankan waxaan jeclahay inaan bulshada halkan ugu gudbiyo wacyigelin iyo nasiixooyin si ay bulshadu uga fogaato ama uga hortagto cudurrada ku dhaca habdhiska dheefshiidka ama se cudurrada ka dhasha habdhiska dheefshiidka oo aan si fiican u shaqayn. aniga takhasuskaygu waa cudurrada habdhiska dheefshiidka ku dhaca. allah baa mahad leh. waxaan ku howlgelayaa qalab casri ah oo cudurradaas lagu dabiibo oo yaalla qaran hosbitaal hadda. qalabkaas oo ah mid casri ah waxaa laga keenay dalka Germany. waxaa sidoo kale yaalla halkan oo aan ku howlgeli doonaa qalab lagula tacaalayo cudurka. waxaa laga keenay qalabkan dalka Germany waxaana lagu dabiibayaa bukaanka qaba cudurka baabasiirka iyadoo aan lagu samaynayn wax qaliina. sidoo kale waxaa noo yaalla oo aan ku howlgelaynaa qalabka laysarka ee baabasiirka lagula tacaalo oo bilaa qaliin ah. intii aan ka howlgelayay Soomaaliya waxaan arkay in cudurka baabasiirku uu aad ugu badan yahay Soomaaliya. markaan ka qiyaas qaato tirada bukaanada cudurkaas qaba ee aan qaabilay oo sababtu ay tahay dadkaas badankood oo aan qaadan biyo ku filan jirkooda deedna calooshu ay istaagtay. haddaan ka hadlo shaqadayda, waxaan halkan Garowe u imid 2 maalin oo shaqo ah inaan ka howlgalo cisbitaalka qaran ee magaalada Garowe. waana bilaabay shaqadii qaabilista bukaanka. haddii eebba idbo bishiiba mar ayaan iman doonaa halkan Garowe, waxaana ka howlgeli doonaa cisbitaalka qaran ee Garowe. waxaan u mahad celinayaa maamulka qaran hosbitaal oo fududeeyey tasiilaadka aan halkan ku imid. waxaan jeclahay si guud inaan bulshada oo dhan u faa'iideeyo daaweynta cudurka baabasiirka. waxaan muddo 2 sano ah kaga soo shaqeeyay magaalada Muqdisho. allah ayaa mahad leh oo fududeeyey dhammaan bukaanadii aan qaabilay waa ay caafimaadeen. daaweyntani maaha mid qaliin ah. waxaan bukaanka daaweynaynaa iyadoo wax dhiba aysan ka imanayn. waxayna daaweyntu soconaysaa muddo 5 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo inta u dhaxaysa. bukaankuna intaa wixii ka dambeeyay shaqadiisii ayuu sii wadan karaa. nidaamkan rubber banding ee daaweynta baabasiirku waa mid aad u casri ah, waxaana isticmaala hadda wadamada reer galbeedka sida Canada, Mareykanka iyo wadamada Yurub. qaabkii qaliinka baabasiirku wuxuu noqday mid qadiim ah oo laga gudbay, laakiinse qaabkan casriga ah ee aan u daweynayno bukaanka qaba baabasiirku waa mid waxtar leh. wadamada reer galbeedka qaabkan marka qofka looga daweynayo baabasiirka waxa ku baxda lacag kor u dhaafaysa $10,000, laakiin annagu halkan waxaan ugu shaqaynaynaa qaab bilaasha. bukaanada qaba baabasiirka waxaan ka qaadaynaa lacag aad u qiimo jaban. qofka aan waxba haysan ee aan awoodin inuu iska bixiyo lacagta yar ee serviska waxba laga qaadi maayo. annaga ayaa jeebkayaga ka bixinayna. allah dartii ayaan u caawinaynaa. dadka oo dhan caafimaad ayaan u rajaynaynaa. waxaan ku howlgeli doonaa qalab casri ah. haddaan ka hadlo cudurka baabasiirku waa dhowr nooc. tusaale, bukaankan shaashadda idinka muuqda waxa uu qabaa baabasiirka gudaha. waxaana laga yaabaa in bukaanku aanu dareemin noocan baabasiirka ee idiin muuqda. baabasiirka gudaha waxaa loo qaybiyaa 4 nooc. waxa kaloo oo jira baabasiir bannaanka ah. dhammaan noocyadan cudurka baabasiirka ayaan si fudud u daweyn doonaa iyadoo qaliin aan la isticmaalayn. daaweyntu waa muddo 5 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo ah,
bukaankuna kuma sii jiri doono cisbitaalka, gurigiisii iyo shaqadiisii ayuu u laabanayaa. dhammaan dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ka faa'iidaysta fursaddan qaaliga ah. waxaana ka howlgelayaa isbitaalka qaran ee magaalada Garowe. ونحب أن ننوه أن المريض لن يبقى في المستشفى، يعمل العمل 5 دقائق ثم يذهب إلى بيته إلى عمله أينما يشاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى الصحة والعافية لكل الناس إن شاء الله.